سلام الله عليكم داو ضيال كسو دوادا برنامج كني فالدا اسبوعا واد آلابا كداوان جرتين بقوغا يوتيوب ان كلنا هاي فيسبوك اي وداكسين برودكشن اسبوعا waxay ku qaada dhigaynaa barnaamijkeena faalada isbuuca dhacdo uguba oo ka dhacday magaalada Muqdisho daawadayaal inta aynaan ugu dagalin barnaamijkeena faalada isbuuca waxa aad si toos ah nagala socotaan boggeena YouTube aan ku leenahay ee wadaagsin waxa iga xasuusinaa inaadan hilmaamin subscribe gambaleelkana furatid si aad mar walba u heshid dhacdo walba iyo warbixin walba oo aan halkan soo galino kumaadsanid Almaas Elman Axmed Cali ayaa lagu dhexdilay gudaha xarunta xalane Almaas Elman oo ah gabar oo leh saarimaha nabadda Almaas Elman ayaa hadda kamid ah hay'adda uu aasaasay aabeed oo caan ka ah ka shaqeynta nabadda isagana hore loogu diray magaalada Muqdisho sanadii 1996 Almaas waxay ahayd diblomaasiyad hore warar kala duwan ayaa ka soo baxaya Dilka Almaas Axmed waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gaari ay wadatay xabad lagu riday ay ku dhacday kadibna dhaawac soo gaaray ay u geeriyootay isbitaal ku yaala gudaha xarunta xalane Almaas Elman Axmed ayaa waxa ay walaalo ahaayeen gabadha Soomaaliyeed ee u tartamaysay biladda nabadda ee Alwaad Elman oo si weyn loogu yaqaan caalamka waxaana wali la ogeyn cid ka dambeysay dilkaasi haddaba Almaas waa tuma Almaas waxa dhalay nin Soomaalida dhexdeeda caan ka ah oo la oran jiray Elman Cali Axmed wuxuu ahaa injineer koronto wuxuu sameeyay shirkadii ugu horeysay ee koronto galisa wadooyinka magaalada Muqdisho markii ay dawladii dhexe burburtay wuxuu kale oo tababari jiray dhalinyaro badan oo qoryaha ka dhigay oo uu baray xirfadaha korontada makaaniga baabuurta iyo wadida baabuurta si ay uga shaqeystaan ku dhawaad 2,000 oo dhalinyaro ah oo loo waday inay ka qayb qaataan burburkii dalka oo ka tirsanaa jabhadii uu hogaaminayay General Cadiid ayuu maankooda ku bedelay inay qoriga dhigaan qalinkana qaataan sidaasi darteed mashruucan ayuu ku bilaabay hay'adda samafalka Elman oo ugu magac daray qoriga dhig qalinkana qaado wuxuu ahaa in aad u caawiyo dadka masaakiinta ah gaar ahaan dhalinyarada kabaha caseeya ayuu siin jiray santuuqyo ay ku jiraan qalabka ay kabaha ku caseeyaan dadka danyarta ah aad ayuu u caawin jiray laakiin nasiib darro waxa la dilay 9 Maarso sanadii 1996 Elman kuma jirin kuwa dadka danyarta Afriisiya ee biilka ama macaawinada u qaybiya ee wuxuu ahaa mid baro xirfadaha ay uga maarmaan gacan horsiga iyo ku tiirsanaanta aadanaha kale oo ah dhan kastood ka eegtaba mid aan lagu hodmayn Elman wuxuu ahaa dhibanihii ugu horeeyay ay dilaan kooxaha caadaysta inay bar tilmaameystaan dadka iyaga ka aragti muuqaal qaab hiraal duwan oo astaan u ah xilligaasi waxa loo dilay shaqada uu qabanayay qaranka Soomaaliyeed ee markaasi burburay dadka uu la shaqeynayo iyo sababta uu la shaqeynayo Fartuun Cabdisalaan Xaaji oo ah xaaskii uu ka geeriyooday Elman waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta Women of Courage oo sanad walba la bixiyo waxaana guddoonsiiyay xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Michael Obama iyagoo hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa ay hadda agaasimo ka tahay ururka Elman waxayna sii wadaa hawshii u bilaabay ninkeeda Elman Cali Axmed gabadhan la dilay Almaas ayaa xogahaynka ahaan jiray safaaradda Soomaaliya ee Kenya balse hadda waxa ay ka shaqeynaysaa hay'adda Elman BC walaasha Dilwaad ayaa u shaqeysay qaramada midoobay halka walaasheed kale ay imaan ay sargaalad ka tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa aan soo xigeenaynaa fariin nooga timid shacabka Soomaaliyeed geeridu waa xaq waanu aqbalsanahay laakiin hay'adaha amniga waxaan uga fadhinaa inay baaritaan buuxa ku sameeyaan arrimaha ku hareeraysan dilka Almaas Elman qoyskeeda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna laga qanciyo dhacdadan ugubka ah waxa si toos ah idinku soo gudbinayay barnaamijkeena faalada isbuuca samafale Cabdi iyo dhammaan bahda wadaagsan production ba inta aan muuqaalka xiisa badan ku kulmi doono waxay idinku kaga tagaynaa anagoo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo